وإذا سلام أصحابتي دقالقة ku xiran YouTube channel-kayga baryahan waa isweynay sidaad ogeedeen waxa aan ku suganahay magaalada Nairobi kaal iska arag isla hadda caaw horta waxaan ku suganahay koonfurka Nafisa Salon Nafisa Salon waxyaabo badan oo waxa jira ay qabato ay takhasuus weyn u leedahay waxaan rabaa inaan usoo gudbiyo gabdhaha quruxda badan oo baahida u qabo dhanka timaha waxay ku takhasustay dhanka timaha sida u jeedaan aniga hadda timaha ii xiran run ahaantii waa arki jiray saliidana timaha u fiican shaambadana timaha u fiican laakiin adoo waxa iimaanay timahaaga ay markaas go'go'ayaan amba ay rifmayaan oo maaragtay aflaaqo iyo timiyo dilmay isla markii waxa baxay timahaaga oo maaragtay waxyaabo badan iska bedelay sawira laga qaadaa before and after marka waxay ka qabtiraysaa walaashay Nafiso runaantii waa wax ay u baahnaayeen gabdhaha Soomaaliyeed in laga qabtiro waxay ka imaadeen dhankaas UK waxayna u imaaday in gabdhaha Soomaaliyeed ay caawiso run ahaantii waxa kamid ah shaqooyinkeeda timaha go'go'a timaha aflaaqada leh timaha maaragtay dhintay inay soo nooleyso sidoo kale qofka markii oo timihiisa u bixi waayaan oo kale way ka caawinaysaa saliidooyin ay haysaa shaambooyin oo markaas tir ku caawinayo koonfurkeeda maaragtay adiga dhakhtarka timaha waay ya maasha Allah marka walaashay dhakhtar leen dhihi karaa sababtoo waa ii dhimantaado inta markaas aa imaaday timahaagii oo isla markii wax iska bedeleen wili lama arkin marka waxa waaye aad aan ugu faraxsanahay number 1 aniga isbarooweeyay wax yar kadibna video idin soo duubi doona hadda timii waa la ii dhaqay saliida la ii mariyay wax yar kadibna natiijada timaha sugaya sidoo kale dad badan jiro ku xiran koonfurkan oo run ahaantii aad natiijo fiican uga helay idinkana waxaan rajeynayaa qaasatan gabdhaha reer Nairobi inaad ku soo xirmataan oo ay la aragtaan haduu Ilaahay idmo lambarkana waxa idinku soo qaraaya wixii faahfaahin shaashada كل إيدنا وورثنا دونا قابك أي معركة تخصص كذا يقابك شقة ذا وقبضته مركنا للصعد ونكسن وفلوق وحواي وحول بابا إيه رأي ذيك قصة ضوء هيا دو إلى إدمه إلى الصعد waxaan tusaale ahaan idinku soo qaadanaynaa gabadhan timaheeda xoogaa kadibna waa arki doontiin sida ay noqon doonto gabadhan tinteeda run ahaantii aad ay u siibmeysay aad ay u daadanaysay maasha Allah waxayna baxday iyadoo 100% aad u qanacsan kulli wad arki doontaan videoga soo socdana timaheeda say ahaayeen waa arkisiin oo arag say ugu daadanaysa gabadha timaheeda maasha Allah waxa ka qabtirtay walaashiis Nafisa Salon maskaxda Ilaahay ku daaya leeyahay waa ka aragtay usoo siibmeysa timaha inta tinta saas ugu dhiban insha Allah waxaan rajeynayaa in ay ka faa'iideystaan saliidaas aad ugu fiican timaha reer Nairobi iyo reer Muqdisho ay Soomaali meel walba joogto kulay inti maqan waa loo dhiibay inta joogtana ka faa'iideysataan leeyahay gabadhan wax yar kadib timaheeda ila arka bal asxaabta qaaliga ah ku soo dhawaada Nafisa Salon isku soo noqosho wanaagsan asxaabta qaaliga ah waa kaasa gabadha timaheeda saasa loo galay maasha Allah tabarakallah ka aragti qurux badan midib ahaanta Ilaahay ku musmadarnada qaabka timaha loogu sameeyay iyo go'go'i oo isla markii gabadhii maaragtay laga caawiyay maasha Allah tabarakallah waa u jeedaan timii sida ay hadayt u siibmayeen iyo sida ay hadda yihiin isma laha run ahaantii waa khibrad iyada u gaar ah maasha Allah marka waa kaasa asxaabta qaaliga aada u mahadsantihiin ku soo dhawaada lambarkana shaashada idinku soo qoraa aad kala xiriiri lahaydeen ayaa baa soo dhawow maxaa leedahay saliid maxaa ka dhahaysaa saliidan aad ay anfacday isticmaalkeedana muddo 2 bilood ah waday sax ma sha Allah aad aan ugu faa'iiday tinteeda jajabki badneed gurmadii sida gurmanaysay jajabkii markaan shalmada soo buuxsan jirtay alxamdulillah hadarta sideedina isku kala egtahay akhlaaqada maamada aad ay ugu jirtay saliida iyo conditionka timaam ku baxeen aad ay ugu baxeen ma sha Allah hay oo hafi ahaan hadda ma sha Allah garbahiga ila sameeyeen conditionkeedii ayada conditionkii saliida iyo shaambada aan aad u laasimay waqti walbana oo ku dhaqi jiray waqti walbana aan ku dhaqi jiray labadii saddexdii habeen aan ku dhaqi jiray habeen walba inta mariyo saliida aan kuskuuso aan masarka ku xiran jiray marka aan maalintii aan banaan ku baxay ama shaqay waxa aada inta kala baro sida maamada igu tarbiyayso ii bartay laba qayb inta ka kala dhigo madaxa isku xiri jiray taakadana aad kuma dhoojin jirin
habeenkiina wax waqti walba u laasimi jiray inaan saliid mariyo aan kuskuuso maasha Allah aadan ugu faa'iiday maasha Allah hadda markii koobaad miyaa markii labaad miyaa meeqa maraa qaad saliida wallahi dhowr mar qaatay almost 3 ilaa 4 laakiin 2 bilood aad u laasimiyay maasha Allah saasaytaan isticmaalkeeda galigeen ma wadin wiilkan walaalkeena isticmaalahay laakiin maasha Allah wiilashana isticmaalkooda aad ay u fiican tahay inta jajabka dhan ay ka bixisay tinta dhameelaha banaanada dhan way buuxisay alxamdulillah maamadan ilaahay maasha Allah waxay nasiib u yeelatay gabadhan iyadoo YouTube ka shaadiye la duubayo inay saliid ay u bagtay ee daaimada ay soo doonatay marka waxaa la dhahaa soo gal YouTube ka marka waa mahadsantahay baa feedback-aada quruxda badan aad u mahadsantahay baadna naqasho wanaagsan asxaabta sidaan hore idinkugu sheegay waxaan joogaa magaalada Nairobi qaasatan caawa waxaan ku suganahay Ceylonka walaashay Nafisa Ceylon run ahaantii waxyaabo badan oo waxaa jira oo idinka dadan gabdhaheena marka abaaya rabto in idin aan maaragtay weydiiyo qaabka macnaha timaha qof walba timo uu sameeyaa saliid waa la soo saaraa shampoo waa la soo saaraa laakiin haddana waxaa jirto khibrad oo qofka bini'aadanka oo u gaar ah yahay ani misalan hadda waa la ii sameeyay tintayda si qurux badan aan la iigu sameeyay marka imaanay timahaygu way go'go'ayeen dhulkay ku dhacdhacaayeen iyaga dhan xoogaa qaleelna way ahaayeen marka iyada ii samaysay run ahaantii aniga iyo inta ka samaysata koofeerka kolley feedback fiican ay ka sameeyeen sidaad usoo aragteen muuqaalka gabadhii hore ee maaragtay hadlaysay soo dhawow Nafisa kusoo dhawow channelkayga marka ugu horeyso waxaan rabaa inaad faahfaahin dheeraada naga siiso qaabka quruxda badan ee khibradda Ilaahay ku siiyay ee aad u samaysatay waa mahadsantahay shaadiyo aadaan ugu faraxsanahayna caawa saaloonkeyga soo booqatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay aqoonta uu ii siiyey saaloonka muddo yar ma aha ilaa 1998 ka saaloonku lahaa festa saaloonkeyga aan furto wuxuu ku yaalay Yemen xaafad basaatiin la dhahayo dadka yaqaana Yemen soo maray u baa yaqaano wixii ka dambeeyay UK ku lahaa London ka bacdi hadana Birmingham waxaan soo bartay hair therapy timaha damage-ka oo dhibaataysan haday tahay timaha qaleelka haday tahay timaha aanan bixin timaha volume-ka ka yaraado oo food inta badan Soomaalida inta meeshaan food ha lose gareeyaan ama inta dhexda tin kor inay ka haysataa la moodaa laakiin hadaa dhexda fiirisid gudihi ever waaye soo marka waxa uu hayaa treatment oo timahaas empty-ga dib u soo celiyo haday noqoto saliid haday noqoto shampoo haday noqoto daweyga wax uu isticmaali lahayd wixii ka qaldan inaa u saxo hadii aflaaqatinta ay dib uga celisay inaan ka bixi weysatin taas markaas inaan aflaaqada si stable uga jaro oo sidii habka ugu fiicnaa oo tinta ay kulli aflaaqada ka wada bixi karta inaan uga jaro hadii ay tahay dry timaha aadka u qalalo oo u jajabo example timaha jajabka iyo siibashada isku mid ma aha markay tinta ka siibanayso qofka iyo markay jajabayso waa two different way waaye intaba waa hayaa haday qaleel tahay haday siibanayso haday volume-ka ka baxo hadii ay gaagaaban tahay ee dheeraan weyso waxa soo dhan treatment oo gabdhaha aad ugu fiican ilmaha yar yar oo example timaha inta laga dabay meelahan inta hore cabitaanka cadaanka ma ahan way ka suushay because xoogay dadkan timaha madowga uga dabaan ilmaha inta timaha markii dabitaanka la bilaabtay يعني way siibantaa so hadaa u fiirsatid dadka madowga oo kale timahooda waxa ku dhacdo dabida burkada ee ku dabtaan hadaa kulligood wada fiirsid inta timo malaha because waxa keenay xooga loo jiiday so ilmaheena Soomaaliyeed timahooda waa iska qafiif waa iska tacbaan marka naagay madowga loo geenay tintiya laga dabaaya meeshaan ay ka loose gareynayaan so markaas waxaas in laga stop gareeyo saliido fiican la siiyo treatment loo sameeyo aflaaqada lagu dheereynayo tinta waa u haya mid kale oo aad jirto Soomaalida oo maaragta problem badan ku hayso oo waxa jirto taakada xoog gadaal loogu dhajinayo tinta waa la jiidaa xoog wash and go aan la dhahaa anaga Soomaalida daarunta isku sheegno waxa waa easy ka dhiganaa gabadha markay banaanka u baxayso quick u baxayso si degdeg waxay sameeyeen taakada soo qabsanay dhag xoog marka jiiday
inta tinta inta badanaa waxaa ka qaado oo gabdhaha inta badan ee problemka ku haystaan ee tinta uga sikato waa taakada xoog loogu jiidaay so marka waxaa la rabaa system oo ka joojinaya timahaas gadaal u sikanaya jirto hadda ani ila soo xiriirtiin waa idin sheegi karaa maxaan ku iraadaa dahabka u shanlaysanaysiin ama taakada ugu dhegsanaysiin oo ugu sahlan oo idinkana dhib idin keenaynin saliido oo timaha fooda hore ka yaraadaaye taakada markay ku dhijiso timihii ka sikaday ama salaxyada oo timaha emptiga saliid usoo dhalinaysa taas iyadana waa haya dadka timaha oo badan oo example qaleelka ka laakiin aan rabin timaha in loo badiyo iyadana saliid u fiican ahaya very important waaye shaadi saliid iyo shaambada iyo conditionka inay isla cado because waxa dhibka keenana waa shaambooyinka kala nooca shaambada oo qaladka oo cusbada leh aad timaha u jajibsaa ee qaleel oo dhigtaa marka insha Allah taala salonkaygu waa idin ku soo dhaweynaa in problem ay haysatiin way iimaan kartiin timihina fiirina hatta advice idin siina advice free ah idin siina hadda wixii aad u baahan tihiin awoodin waa iga qaadanaysiin hadii kale mar kale u soo tabaabushiisanaysiin insha Allah okay aad u mahadsantahay walaashii Nafiso run ahaantii Nafiso waxa ay ku hadlayso waa wax in guarantee waa wax la hubo anigan idin hortaagan hubo qaabka timaha ay igu sameysay ma jirto meel isla markii inta tagtay isla markii timahaaga isbedelayaan xogaa bariyo ama bilaal loo kaadiya inkastoo wax walba markii lagu dadaalo maaragtay iska sii fiican tahay hadana isla markii timahaaga waa ka dareemay okay saliidana u jeedana kamid saliidooyinku way badan yihiin mideeda kale dadka maqan oo dabcan hadda Nairobi ku leedahay dadka maqan oo aan joogo sida Soomaaliya oo kale sida maaragtay ay wadanna waa kaargo ahaan waa loo dhiibi karaa way geenaysaa meel alla meesha joogtid wadanka joogtid oo lagu keenaya marka qofkii maqan oo markaasna way u sheegaysaa qaabka uu marsanahay iyo qaabka uu isticmaalayo qofkii la joogana isbuuciba amba labada isbuucba maalmo kadib waa imaanaysaa si ay timaha ula socoto marka ma sha Allah tabarakallah aad kuugu hambalyeynaya run ahaantii gabdheena aad ugu dhibanahay qaybta tinta aadaan ugu faraxsanahay run ahaantii hadda anaa kamid ee timahayga hadda way daboolan yihiin laakiin insha Allah sida video ku soo aragteen waa aragteen timaha before and after marka soo dhawaada idin leeyahay koofirkan wuxuu ku yaalaa Jam Street uu ku yaalaa Munis Plaza sarta cusub oo Munis Plaza wixii ka soo horjeeda iskoolka oo Ansar Sunna ay ka soo horjeeda marka waxa waaye meel la garan waayo ma waa meel caan wixii faahfaahin dheeraadan waxaad kala xiriiri kartaa lambarka shaashada idin kugu qoran TikTok meel walban waa soo dhigaya gabdhaha Nairobi gabdhaha Soomaaliya dalka dibadiisa gabdhaha ku nool wiilash xitaa waa u fiican tahay nimanka xitaa way caabisaa waxa meel walba joogtaan ku soo dhawaada idin lees waa salon oo dhameystiran qaasatan takhasuuskeeda waa timaha ku soo dhawaada salonka Nafisa Salon